بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي خيرك الله ينوافجيه خاتمنا الله ينصوبيه. أفر قضب عن ربنا عن كهدله مدبنا سدح قضب عن كشيه وقتي وكوبان درتي شيخا وحان كوير مكان سوفر يسور وحان نسير لوغا هدلي وحيلي تويتر باسو قابل لغا برتي يرو كوبان الجداد كل ما waxaan rabaa inaan idhaahdo intaana qodobada gelin diinta wax laga sheego waa dagaalka xaq iyo baatilka qayb ka mida waay inta xaq jirana iyo baatil jiree loolanka iyo hardanku ka dhaxeeyo hardanku gacanna waa noqdaa afna waa noqdaa adinna waa noqdaa in la iscaayo la isdhaleeceeyo wax laga sheego haddana ma bilaaban horena waa u jirtay haddana waa jirtaa dibna waa jiri doontaa tanina waxay ka mid tahay un mabda'ii asaaska ahaa ee qur-aanka iyo sunnadu sheegeen ee loolanka iyo hardanka xaqa iyo baatilka intaa ka horudhacaa kadib waxaan rabaa inaan ka hormariyo maxaa ina saaran maxaa laynaga rabaa baa ka horeysa maxayna saaran oon samaynaa iyo seen u dhaqanaay waxaa ka horeysa sidee baa layloona dhaqmayaa qodobadaas waxaan rabaa saddex qodob qadiyood inaan wax ka tilmaamo qadiyada koowaad ujeeddadu maxay tahay ujeeddada mar ba nabiga la caayayo mar qur-aanka la caayayo mar islaamka o dhan la caayayo mar dadkiisa la caayayo marba qaab loo caayayo ujeeddadu maxay tahay saddex baan ka soo qaadanayaa ujeeddooyinka kow islaamkan xawliga ku socda in la xakameeyaa la rabaa guryahoodii buu gelayaa dadkoodii baa islaamaya waxay isku raacsan yihiin diinta xawliga ugu badan ku socota dalkii gaalada waa islaamka haddaad riboodyada akhridaanna kaniisadihii baa loo bedelayaa hadda south africa niman ka yimid oo kaniisad weyn gatay oo masaajid u bedelaya oo taa kula rabaa inoo jooga xawliga diintani ay ku socoto si loo hor istaago dadku waxay ku daadanayaan oy jecel yihiin haddaa rabto inaad ka cedayso inaa cayda ma in dadka loo foolxumeeyo oo horta dadkoodan islaamaya islaamka laga hor istaago oo islaamka guri walba gelaya la xakameeyo waa ujeeddadu mid waa middaas si dadkii aada uga celiso hadda markaan tahriibka ka hadlayna soo dhibkiisa kama sheekayno markii dagaalka sokeeya laga hadlaya ceebihiisasoo lagama sheekeeyo markii ribada laga hadlaya dhibkeedaasoo kama sheekayno islaamkan in la caayo carruurta lagu barbaariyo oo dadka la nacsiiyo ceeb iyo fadeexad laga dhigo oo kii waday la caayo oo diintii la caayahay waa dadkan islaamaya in laga hor istaago wey taasi waa hadaf koobaad hadafka labaad ee laleeyahay waxaa ka mid a islaamkii waa soo noolaanayaa mabaadi'dii kaloo dhan baa fashilantay hanti wadaag baa fashilmay hanti goosad baa fashilmay dimuqraadiyad baa fashilantay calmaaniyad baa fashilantay khiyaarka beddelka ee soo haray waa islaamkii muslimiintii haddaba in la nacsiiyo oo la caayo oo la qodqodo oo ceebo loo raadiyo si kalsoonida islaamku inuu badbaado yahay qalbigooda laga saaro ama kalsoonidii loo daciifiyo wax loogu dhimo de markii albaabkan soo xirmo ee kan xirmo wanaaggii islaamka bal islaamka aadna waxay arkeen dhaqaalihii ribadu markuu fashilmay xataa kuwii dhaqaalayahankii gaaladoo leh system ama qaab dhaqaale oo islaamka ka fiican ma jiro waa in la caayaa marka si loo dibdhigo haddii xataa la joojin waayo kalsoonida islaamku muslimiintu ay u hayaan inuu isagu xal yahay iyo isagu wanaaggii yahay isaga in lagu badbaadayo shacab iyo dowladba loo noqdo tii si looga hortago lafteeda waa in dadkii muslimkaa laftiisa kalsoonidii laga dilo shacab hadday yihiin xukuumaad hadday yihiin iska badaa dadkii kale
صادرتك كعذونك إسلامك ودبسون نولاني مبادئي كلا بدلي بالا ربع كالسولي ذيني إن وحلو دم وحكى الله ربع هدفت كميدا عيد الدين تي إسلامك إن شيء دبيعي وعادي على قدره سير لوجو العليني إن لقدر سيد يقف لعاية جورنال لعاية هذا وحن مرينا كاسفيري وحالو دي مركي نبي دين تلعايو ما يحد هبل البوال لعايا جورنال هبل البوال لعاي إسلامك جورنال كلو هي لو دحال روا ولا غادي عادي وهدي لعايا قيردي إي حماسة دينيد إي إناد كدي دي وحو دينكيسي إن لغا دينا لا روا وعادي لا غادي إن لعايا وعادي إنها سوا صدخنا waxaan kaga gaabsan ujeedooyinka la rabo in laga gaaro waxa la sameeyo qaabka loo marayo iyo qaabka arinta loo xaqiijinayo waxa ku garan kartaa ayana saddex baan ka soo qaadi wax gaar ah ma aha diinta oo dhan boqoy mar islaamka oo dhan wax laga sheegi mar quraanka wax laga sheegi mar nabiga wax laga sheegi mar xakaamtii qaar kamid wax laga sheegi حدودي قعان قوينتي الرجمي بقى لعاي مر حجابكي يا نقابكي بقى لعاي مر قوركي يا فرنتي يا لعاي طلاقي يا تعدد الزوجات بقى لعاي مر دحلكي يا ميراث بقى وحلقة شيء مر باب الرقي بقى لقيل مالكري وتشددوا معها مركب تشددوا النبي معها فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون دينتنا الذي marka waxa laga hadlay hal baab kaliya ma aha meel walba dhaxtuurka tan markaad ka hadasho tan lagu wadi maayo tu kala lagu dhici ujeedadu islaamka oo diinta inay tahay mar xagga laga dhaxtuuri mar xagga laga tuuri mar xagga la tuuri mar xagga la tuuri nabi kaliya looma jeedo diinto dhan iyo dadkii keenay baa loo jeedaa manhajka waa la isticmaalayaa meel laba inaan la dhaafin oo meel walba wax laga sheego qof walba inuu wax ka sheegana waa qodob labaad oo la isticmaalayo dad gaar ah maaha waxa diinta wax ka sheegay mar siyaasiyiin baa maagi mar hay'ado xuquuq ay u doonaan la yiraahdaa wax sheegi mar waxa kuwa kaniisada wax sheegi mar qolo mulxidiin ah wax sheegtaa lagu dhihi kuwa ridoobay baa wax sheegay baa lagu dhihi Soomaaliya dadka markaad eegto diinta wax ka sheegaya saxafiyiin baa wax ka sheegay baa lagu dhihi markaad eegto qaybaha bulshada kala duwan qaybaan ka qayb qaadanayna ma jiro waa shaqo la wada qabanayo isdhameystiraysa waa maanta siyaasi markuu hadlo waxa lagu sawiri siyaasiyiinta balaayada wada markuu joornaal hadlana saxaafad maxaan ka qaban karnaa baa lagu dhihi markay kaniisada hadashana waa dagaalkii diimaha lagu dhihi markii hada xuquuqa ka hadlayaan arrimo gaar ah iyo khuseeyay wataan baa lagu dhihi laakiin hawshu markaad jumlada isku ururiso suwaaro maana dhihin takfiirku waa labo mid jumlada dadku waa wada gaala mardha iyo mid tafaariiqo kalba qolo gaalay waxba aan ka tagin dukaamada suuquna nina jumlo gada nina tafaariiq buu gada laakiin maxaa lagu heshiis yahay alaabta la wada gado wada beec marka tafaariiq baa lagaaga dhigi laakiin waa ilka abeeso hoosta ka xiriirsan waay waa wax la rabo kolba qola lagu tusi kolba qola soo bixiyo dowr qaadan marka manhajiyada labaad ee la raacayo manhajka loo raacayo waa qaybaha kala duwan inay ka wada qayb qaataan qodobka saddexaad ee manhajka la raacayo aan ka tilmaami karo waa in la joogteeyo marba soo qofka xanuunsan in la cabiro maydaan arag waxoogay markii la joogaba waxbaa laynagu qaadi cabirkeennu qiirada iyo inaan ka gubanayno iyo weli iimaanka dareen kale inagu haray baa kolba la cabirayaa kolba ushaa layna gelinayaa dee halkay maraysa halkay maraysa halkay maraysa haddaad aada u kacdoontana waxoogay baa loo yarkaadin haddana waa lagu tijaabin marka tijaabo joogtaa in lanagu wado oo marba layna cabiro dhiiggeenna la cabira meeshuu marayo iyo damiirkeenna iimaan iyo qiiradeenna iimaaneed intay nooshahay lagu cabiro wasaailka la isticmaalayo mar saxaafad baa lagu isticmaalayo saxaafadda xorriyatu tacbiir la lagu dhihi saxaafaddana dadkoo dhan baa wada akhrinaya mar aqlaam musta'jara qolyihii ridoobay
sidii salmaan rushdiya ayaan xirsi iyo baa la isticmaali idinkaa muslin ahaa idinkaa ka soo tegey idinkaa hoos wuxu garanaya dadkiina idin rumaysan baleedaan ka tagay waatane wax qora waa lala hagaajin maalin waxaan usoo qaatay ayaan xirsiinaydan garanayn ba gabadhi ayaan daran ahayd waa tii naagta qaawan faatixada intay ku soo qortay naag qaawanoo tukanay soo sawirtay wey tuugii la socday foqooqna wiil baa toori wadnaha iyo xabad ka taagay si fiican magaalada bartankeeda xilli barqa Amsterdam nin rag ahaa ilaa hadda xabsi baan ku ogaa marka kolba waxaa la adeegsanayaa wejiye cusub mar saxaafad baa lagu adeegsan mar magacyaa lagu bixin argagixiso weeyaa lagu dhihi xagjir weeyaa lagu dhihi seeflabood weeyaa lagu dhihi dibu socod weeyaa lagu dhihi magacyo badan baa kolba wax lagu dhejino wixii dadku nacaan dhaqanka dadku necab yihiin oo dhan baa adiga lagu tiirin inta iyagu qaraxa soo abaabulaan baa lagu dhihi islaam baa sameeyey ka iyagu ay samaynayaane yuhuud carruurta laynaysana argagixisa maaha kii muslim sameeyana magac xun buu leehay ujeeddadu maxay tahay diintaa dadka lagu dirayaa hadafkii baa la xaqiijinayaa maxaynala gudbo inaan samayno 3 daqiiqa ay dhimasho 15 daqiiqo maxaynala gudbo inaan samayno hadafkan diinta dadka laga hor istaagayo waxaynala gudboon oo nafiya maalba inaan ku bixino diintan fidinteeda وأنو نيرانا دينتو ويفيديا موتوا بغيظكم إلا دينتا نكن محوكا حناقي ماكرون وادركيزا سوما كبدي مالي لغا سوداي اسلامتي وايلكا هي markay garoonka ku tiri uu soo dhaweeyay waxa la rabay waan islaamay intuu wajigu madoobaday buu orod kaga baxay meeshii wax ka badan oo la sameeyo la caayo dadka islaama uga daran waayo wixii waxan loo sameeyo dhan hal bacaad lagu lisanaad ka dhigta ma rabtaa diintan iyo wanaageeda iyo xakaamteeda iyo caqiidadeeda inaan fidino waay kharash badan inaan ku bixino way guryahooda say ugu seefidi lahayd kaniisadaha loo gadan lahaa masaajidu u badan lahaayeen guryahooda gudihiisa baytama wabarin walaa madarin aan ka dhigno waay taasi waa dadaalka aan bixinay runta waxaan oo dhan fashilinay wax kasto baalon oo la afuufo hawada ka saaray waa kow qodobka labaadi shubuhaadka tashwiishka lagu furay ahkaamta islaamka iyo ku jaahilo la isticmaalayo ku dan laho ridoobo la isticmaalayo dadka caamada muslimiinta shakiga iyo waswaaska laga gelinayo mar walba culimadu inay u taagnaadaan sida quraanku waa mar kasto ay wax qaldan sheegan looga jawaabayo wax kasto khaldan oo la sheegaba jawaabteeda in laga siiyo وانا حديثكي حسن قال الله أمري يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهل العلماء يتقنا نوي من جاهل وسخل دم وحفظ سري من باطل وطائر كهوس قبرات دونه باطل كيسوه هو إيوه من دن له وسخل دم وفسري انت سخل دم وفسري النصوص أما يكون قلوا عاتي had iyo goor shubhada radinteeda xaq cadeyntiisa ahkaamta sharciga wax laga sheegay xikmada ku jirtay wanaag iyo toosnaantooda inay sidan saxan tahay inay culimadu mar walba la taagnaadaan oo mujtamaca muslimkaana u cadeeyaan san diinta looga saarin ama shaki looga gelin kuwa kalena loo cadeeyo si diinta wanaagooda ay u soo galaan muslimiintu xoog waxay saareen arrimaha islaamka iyo haweenka inay ka hadlaan markii islaamku haween buu yeelay la yiri waxa ugu badan ee Yurub islaam waa haweenkii mutacallimaadka ah wax bartay in bakay saa u sii daayeen beenti baa runtii la cadeeyay markay wax akhriyeen waxayna beenti baad ogaadeeno xataa naagii baadiriga hawada islaamaya marka kaalintana waa kaalinta labaad ee la rabo inaan qaadano kaalinta saddexaad dhacdooyinku inaan kaga jawaabno mid walba sida ku haboon qaybin laga aamusaa ku haboon midaan warkiisaba la maqleen adoo inaadan buunbuunin oo inta la qiimeeyo kan codkiisuna meel lama gaaro 10 qof maqli maayaan adoo maxaad ku maqashin qaar baa in laga aamusa ku fiican
oo adiguba aad caan bixin qaarna wuxuu u baahan yahay in tallaabo laga qaado tallaabada laba arrimood baa muhiima in la eego maxaan awoodnaa marka la yidhaahdo qof shibilihiiyo dowladii way kala mas-uuliyad duwanaan maxaan awoodnaa marka la yidhaahdo meelaad ku xoog badan tahay iyo meelaad keligaa tahay way kala duwanaan maxaan awoodnaa marka la yidhaahdo meelaad gacan qabsi heli karti iyo meelaadan gacan qabsiba heli karin way kala duwanaan taana waxaa xadidaya maxaad awooddaa waktigaad joogtay iyo meeshaad joogtay ee itaalkaagaa xadidaya ama cunaqabatayn dhaqaale dowlad baa soo rogi karta iyadoo ka tabar daranna shacab baa soo rogi kara in waddan laga caydhiyo dowlad baa wax soo rogi karta qaybo kamid oo hay-ada diblomaasiya shacabku waddanka inay ka cararaanna daweyna soo rogi kara nin cunada loo diidayna nin diin iyo nabi caayi waa xarbiguna biyaha haddaadan biyaad ku weysaysata haysanin intaa isaga biyo siisa ma gebagabaysan kartid kaama asaxayso ay xayawaan muxtarama maaha haw dhinto oonka weysadaa ka muhiimsan ninka lagu yidhi weysadaa ka muhiimsan inaad lacag ugu darto ka waran aduu halkaa inta ka badan inta bannaan buuxso sosaama iskuma ogid adaad waktiga iga dhammaaday adaa durugsan doona waxaa xadidaya maxaan awoodaa maxaase tan ku habboon sida ku habboon in looga falceliyo dhacdo kastabana xaaladeedana la qiimeeyo maxaan awoodaana la qiimeeyo wakti waa igu dhammaaday raalli ahaada inta daqiiqadii aan ku darsaday wamahadsantiin jazakum allah khayr assalaamu calaykum